psychologist muxuu yahay horta cilmiga psychology-gu waxa weeyaan waa cilmiga darsa bini'aadanka maskaxdooda waliba maskaxdii baa qaybo kala duwana marka anigu taan bartayna waxa weeyaan waa counseling psychology ama clinical psychology marka badanaa dadku waxay isku khaldaan psychiatrist oo dawo siiya sax iyo annaka oo counseling samayno qofka la talina sax psychology-gu horta anigu aqoon uma lahayn Mareykanka markaan imiday class psychology aan qaatay si fiican baan uga helay sidan markaan master ku noqday kadib markaa baan furtay meel anigu aan leeyahay waxa u badan dadka ku imaada ay ka soo cawdaan oo maskaxda la xiriira maxay yihiin xanuunada inta ugu badan dadka psychologically ku dhaca sax waxay u badan yihiin saddex qaybood oo waaweyn qaybi waxa la yiraahdaa personality disorders sax waa dabeecadda qofkii oo khaldantay waxa kaloo iyagana jira xanuuno neurological sida imika autism-ka Soomaalidu aad ugu badan yahay oo qasheen waxay ahayd dadka miir ahaan inta loogu dhaxdhaco ama qofka si noqdo guri la keeno quraan la saaro qaarkood la uleeyo waxa ay ka dhaxlaan oo la dhaho maxaa la jira hebel baa ka dhaxlay ama jinni baa ka dhaxlay ama balaaya ka dhaxlay waxaas ma wax la sameeyba ma wax asal ah caradan kale ma ka dhacdaa ummadaha kale ma la qabaan way jirtaayo hysteria gaaladu way lahaan jirin waagii hore qofka inuu jingalo badanaana waxa keenta la yiraahdo extreme trauma marka badanaa terabiga markay yimaadeen waxa la sameeyaa waxa la ogaadaa meeshii waxaan ka yimaadeen traumingii ku soo dhacay ka bacdina waxa la isku keenayaa labadan qaybood oo maskaxdu kala yeeltay maxaa sabab panic attack panic attack waxyaabo badan baa sabab mar trauma wax hore ku soo dhacay oo sababayaan marna waxa sababaya dadka qaar oo iskaga dhacaa waxa laga yaabaa inay u keento ama xanuuno jirka oo haya sax markii aad yarayd hadii midalan hooyada ay kooran jirtay war aamus dadka weyn ka xisho oo markaad weynaato ummadda markaad soo ristaagtid adiga dhan wadnuhu ku boodayo cabsanaysid soo dantaana waa ta ilmaha traumatize garanaysa dhaawac maskaxeed u geysanaysa ma anaga kurtiganade markaas waxaan laga fiirsan wala soo dadka ku soo wada koreen hadhow markaan weynaanay isku malaynayna caafimaad qabnay aan caafimaad qabin mise dadkan iyo waddankan oo nimid baa waxa ka badbadanayo buunbuuninayo waxyaabaan marka of course dad badan oo Soomaaliya oo nolol adag soo maray oo ka booday way buuxaan laakiin dad badan oo la hadhayna way jiraan waddankan wuxuu sameeyaa waxay tahay in wixii magacyo loo yeelay Ahmed kusoo dhawow Doctors and Poets maanta aad baan ku faraxsanahay inaan kugu soo booqanay xafiiskaaga waxaan rabaa inaad intaanan bilaabin waraysiga waxaan malaynayaa psychologist u horeeyay cilmi nafsiga iyo arrimaha psychology-ga iyo mental health-ga ku saabsan oo waraysanay inaad tahay dadka audience-ga naga amana dhageystana aynan arrimo ay aad ugu furan yihiin ama wax badan ay ka yaqaanaan inaynan ahayn marka waxaan rabaa bal inaad daahfur yar noo samaysido Ahmed muxuu yahay ku yahay arrimahan maxaa marka hore adiga aad ku dooratay iyo aqoonta aad u leedahay arrimahan psychology-ga iyo maxaa la jiray mental health inaad bal wax yar nooga taabtid aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaad iga soo casuuntay barnaamijkaaga psychology-gu horta anigu aqoon uma lahayn markaan misalan high school-ka dhiganayay waa dambe markaan college-ka bilaabay yaan buug akhriyay marka buugga wuxuu ku saabsanaa educational psychology wax la yiraahdo marka badanaa wuxuu ka hadlay ciyaalka yar ee iskuulka yimaada waxbarashadooda waxyaabaha ka celinaya inay si fiican wax u bartaan marka qayb ka mid ah waxay ahayd inuu ilmuhu emotional problem uu qabo marka buuggaasi wuxuu ka hadlayay emotional problemka masalan guriga waxa ilmaha ka soo gaara masalan hadduu aabihii balwad leeyahay haddii maxaa la yiraahdaa dagaal guriga ka jiro raadka ilmaha ku yeelanayaan emotionally iyo si ay waxbarashada wax ugu dhimayso marka buuggii baan aad ula dhacay kabacdi Mareykankaan imiday Mareykanka markaan imiday class psychology aan qaatay marka classkii si fiican baan uga helay marka textbook waxaan u akhrin jiray sidii novel oo kale waa interest weyn iyo xiiso badan baan ayaan u hayay sax so then waxaan major granay education markaas aduu sanadkii ugu dambeeyay seniorka ay macallimadii igu tiri waad ku fiican tahay maad major grade marka waxa yaab lahaa inaanan garanaynin waxa psychology-ga lagu qabto in
cilmi ahaan waan ka helay صح laakiin aqoon ma lahayn psychotherapy-ga iyo waxyaabahan kale ها waayo dhulkeennii ma jirin psychotherapy mugta مهم. dan markaa waan major gareeyey anoo major gareynaya ayaa waxaa dhacday gabadh Soomaaliyeed oo aan u turjumay markaan iskuulka dhiganay turjumaan ku shaqeynay mugta صح marka gabadhii aan u turjumayay ayaa waxaa dhacday dhakhtar psychiatrist aan u geynay هاي dhakhtarkii psychiatrist-ga markaan u geynay ayay nagu tiri gabadhan agteeda ah ها ballan uga samee marka waxaan u haysanaa gabadhu inay madaxa iyo wax ka baadhayso صح ay raajatiyo wax saarayso ها صح bes gabadhii waan u ballaminay maalintii dambaan u tegnay bes gabadhii meeshii way fadhiisatay marka gabadhii su-aal bay weydiisay haddana su-aal kale haddana su-aal kale markay saacad socotay su-aalo un weydiinayso مهم. ay gabadhii soo egtay tiri waa maxay su-aalahan badan mayna dawey siinayn ها waan weydiiyey waxaan ku yidhi dawo gabadha ma siinaysid markaa tiri maya anigu waan la hadlayaayo صح kabacdina ballantan ha soo noqoto ها marka gabadhii Soomaaliyeed waa inta saa eegtay way tiri balaayadan hadalka badan صح dib dambe uguma soo noqonayo ها waxay faa'iidaysay dawanay ma siin way tiri mugto marka macallimadayda aan u tago waxaan ku yidhi naag saasaan u tagnay marka way tiri umaadan garanayn psychology-gan aad baranaysid wuxuu qaban in doonaa shaqadaasi ay qabtaan ها marka waagaaba therapy igu horreysay in kabacdi markaan bachelorka dhameeyey baa waxaan ka shaqayn jiray Ramsey County صح marka Ramsey County baan psychologist badan la shaqeeyey because dadku marka ay caydha muddo qaataan ay shaqo waayaan مهم. ayaa la oran jiray maxaa ka khaldan so in psychologist loo diro mugta ها so then xaggii baan ku bartay waxay qabtaan so then markaan master ku noqday اوكي masterkii markaan ku noqday counseling psychology aan major gareeyey la talinta dadka ma xanuunada dadka maskaxda xanuun okay dadka la talinta dadka xanuunyada maskaxda qaba aad master ku samayso master ku sameeyay صح kabacdi markaa dhakhtar university waa leedahay ku clinic la oran jiray ها ayaan ka shaqeeyey صح marka dhakhtarka inta badan waxaan la shaqeynaya cadaan iyo madow iyo dad ajnabi ah Soomaalina waxoogaa baan la shaqeynayay صح kadib 3 sano kabacdi waan license ka qaatay ها kadib markaa baan furtay meel anigu aan leeyahay oo meeshan hadda meeshan hadda maanta maanta joognaa صح صح kadib adigu 12 sano ku jiray مهم. mar dambe ayaan haddana PhD da dib ugu noqday ها marka PhD da researchigayga wuxuu ahaa Soomaalida iyo say traumada u arkaan si fiican kiiba haddana wuxuu ila galay barnaamijkan labadeenu ka wada sheekaysanayna ahaa collective traumada iyo say Soomaalidu u aragto si fiican so dan markaa jaamacaddan Harvard la yiraahdo apply gareeyay مهم. kadib markaa iyada ayaan thesis-kii ku sameeyey ها tiyan ka wada hadlaynay collective traumada iyo Soomaalida صح waa mahadsanta Axmed aniga markii u horeysay oon isbaranaynay waxaan kugu bartay waxay ahayd thesis-ka aad ka qortay jaamacaddan Harvard markaad joogtay sax ood uga hadlaysay traumada waxa adiga u bixisay utun oo u tagi doono oo dib nooga aad nooga sharixi doontid laakiin dadka aan hortu garanaynin psychology iyo ku shaqayntooda iyo dadku waxay qabtaan psychologist muxuu yahay muxuu shaqadiisa maxay tahay waa wax yar waad ka yara taabatay laakiin waxaan rabi lahaa inaad faahfaahin yar intaas yar dheer aad naga siisidoo maybe qaabka u kala baxaan iyo adiga khaasatan qaybta aad ku takhasustay psychology waa su'aal aad u fiican horta cilmiga psychology-gu waxa weeyaan waa cilmiga darsa bini'aadanka maskaxdooda waliba maskaxdii baa qaybo kala duwana wuxuu darsaa qofka bini'aadanka suu u fikirayo siduu dareemayo afcaashiisa iyo waxyaabaha uu samaynayo iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay intaaba badanaa xooga saaraa marka qaybo badan buu leeyahay waxaa jira educational psychology oo sidii hordhaca aan ku sheegayay caruurta yaryar ee iskuullada dhiganaya inay wax ka khaldan yihiin maskaxiyan oo waxbarashadooda ay raad ku yeelanayaan darsa waxaa kaloo jira industrial psychology oo badanaa darsa kambaniyada iyo shaqaalaha inay productive yihiin haddayna productive ahayna maxaa ka khaldan environmentka ay ku nool yihiin wax ma u dhimaysaa maskaxdooda inay daalaan inay wax u fiirsan karaan ay darsaan iyo motivationka inay qofka dhiirigeliyaan inuu productive noqdo iyo waxyaabaha dhiirigelinta ka ilaalinaya masalan ku ridaya inuu qofkii uunan shaqadii sidii la rabay u qaban waxaa kaloo jira experimental psychology marka experimental psychology waa kuwa badanaa researchiga sameeya marka waxyaabahan aan baranayno dhan inta badan
waa cilmiya iyagu ay soo baadheen صح oo markii dambe akademiyada soo galay oo dadka la baray mugta marka iyagu shaqadooda ugu badanay laabab bay ku jiraan oo jiirka iyo raadska ay badanaa testi garayaan wixii ay barteen bay rabaan inay ku sameeyaan maxaa la dhihi jiray experiment Soomaali waxa lagu dhaarto oo tijaabooyin bay sameeyaan tijaabooyin inay shaqeynayaan xayawaanaadka yaryar bay tijaabinayaan marka wixii ay soo tijaabiyeen ee shaqeynayay bay marka annaka noo soo gudbiyaan marka anigu taan bartayna waxa weeyaan waa counseling psychology ama clinical psychology صح marka clinical psychology mainly wuxuu xooga saarayaa qofka bini'aadanka ay wax ka khaldan yihiin sidee baa loo caawin lahaa maskaxiyan marka badanaa dadku waxay isku khaldaan psychiatrist oo dawo siiya صح iyo annaka oo counseling samayno oo qofka la talina صح waana too yaro adag Soomaalidu inay aad u yaro fahmaan sheeko yaablo anigay soo martay waagii aan bilaabay ayaa waxay ahayd dad badan oo Soomaaliya markii yimaadeen waxay dhahaan waa nolol kaa soo diray marka cabsi bay haysaa waan walwalayaa marka kabacdi markaan su'aaliyo wuxuu weydiiyay horta adigu maxaad ii qabanaysaa marka baan aniga ugu yara adkaatay inaan u macneeyo mugto because psychiatrist haddaad tahay dawaad siinaysaa qofka waxa la dawaan ku siino dawadan baa ku daweynaysa mugto صح aniga marka waxaan idhaa waxoogaa waan kula talin ama waan maxaa la dhahaa ku wada sheekaysanayna صح marka qaar baa saayintay ku eegaan u malaynayad iska ciyaaraysid because waxaan aad u sheegaysa iyaga macno ma samaynayso laakiin meesha ay badanaa faa'iidada ku arkaan baa waxay tahay experiential markay kuu yimaadiin ee aad dhegaysatid aad judge garaynaynin maxaa la yidhaahdaa technique aad baraysid ay ku manage garaynayaan cabsidoodii ama walwalkii ama murugadii haysay dan markaa waxay odhanayaan wallaahi waxbaan isbedel baan dareemay ama waxbaan iska bedelay marka tusaalooyin hadhow waan ku siin doonaa oo ka mid a siyaabaha aan u daweyno marka badanaa anu dadka waxaan ku idhaahdaa horta marka hore tega meesha tijaabiya kabacdi marka haddii aad aragtiin inay waxba idiin tarayn waad joojin kartaa laakiin inta badan waxaa dhacda markay tagaan ay la qabsadaan inay aada uga helaan waxoogaa waqti geliyaan inay dareemaan in xanuunadii ama wixii ay ka cabanayeen ay wax iska bedeleen naftoodana ay wax badan ka barteen okay marka xanuunyada dadka ay kugu imaadaan ama ay ka cabanayaan badanaa ma noo yara categorization u samayn kartaayo maxay ku saabsan yihiin ma qof de stress hayo shaqo la'aan ku dhacdayba ma qof maskaxiyan si kale wax u hayaanba waxa u badan dadka ku imaada ay ka soo cawdaan oo maskaxda la xiriira maxay yihiin horta badanaa in general ba haddaan ka hadlo xanuunada inta ugu badan dadka psychologically ku dhaca waxay u badan yihiin 3 qaybood oo waaweyn qaybi waxaa la yidhaha personality disorders waa dabeecadda qofkii oo khaldantay so badanaa taa waad maqasheen baalmane narcissismka borderlineka antisocial psychopath waxaa oo dhan waad maqashay mugta marka taas waa dabeecad dadka aan maqleen waxaas wax micno yar af Soomaali noogu micnee hadda psychopath oo kale maxaa weeye psychopath waa qof aan naxaynin Soomaaliduna maamaabay lahayd oo waxaa la odhan jiray niman nixin looma naxariisto صح marka I think dadka psychopathka intay arkeen ay dhahan kani rajo ma laha marka waa in la iska qabto marka psychopathku waa dadkan badanaa serial killerka ee aadka looga cabsado laakiin intooda ugu badanaysaa maaha qaar badani waxa weeyaan waa antisocial kuwan crimeyada gala ee xabsiyada ka buuxa ay badan yihiin qaarna waxaaba hadda buugan akhrinay mar dhaweyd wuxuuba ka sheekeynaya kuwa corporate-ka because corporate-ka buugaas wuxuu leeyahay si ay successful u noqdaan waa inay ruthless noqdaan oo dad badan fire garayn karaan oo decisionno aad u adag ay qaadan karaan so markaa dadka psychopathy traits ama dabeecadda psychopathygu hayga ku tahay ayaa badanaa meelaha ugu sarsare gaadhaya because of naxariistaas aynay naxaynin meesha kale successful ku yihiinna waxaa ka mid a militariga ciidamada maadaama ayna naxaynin waxa weeyaan dabeecaddaasi waxaa laga yaabaa in lagu xushaba oo lagu dalacsiiyo la yidhaahdo waa geesi la yidhahdo ma cabsanayo iyo ma boqayo waxaa la yidhahdo waxaa la isku yara xiri karaa waan malaynayaa corporate-ka iyo militariga sababto militariga markay World War II iyo waa hadda kor akhriyay markay ciidamada soo laabteen iyo industrieska America marka ay soo kacayay
dadka ugu horeeyo madaxda weyn ka noqday corporationka weyn oo dhan generaal military ay ahaayeen aad iyo aad marka ayaga sarab gareeyay standardki iyo wixii normal ahaa iyo sida la iskula dhaqmayo iyo marka nin markuu hadda kabar weyn CEO ka noqdo mararka qaar waxa influence ku leh generaaladii waxaan ugu horeeyay oo wadada sii falay marka sidii generaal inuu fikiro oo dadka maxaa la dhihi jiray la dhaho ninkaas waa in laga baqo go'aamad adag laho meeshuu gala mar aan ka soo noqonin waxaas sax way isku yara xiran yihiin labadooda way isku xiran yihiin and also psychologically waa inaad dabeecadeedii leedahay because dad qalbi jilicsan leedahay oo dadkii ka naxaysi sax dan go'aanada qaar way kugu yaraadkaaneen sax marka iyagii laftigooda waxaa la aaminsan yahay sababta loo sii kala xulanaya qaarkood inay trade kaleyn sax marka taas waa narcissist baa sana ka dhawaajisa narcissistigu badanaa waxa weeyaan waa qof isagu isla weyn dadka kale oo dhan hoos u dhigaya marka dadkaas iyaga laftigoodu qaar badan oo successful ay leeyihiin waxayna u badan yihiin politicianska lawyerska qof hadaad aragtid isgeejinayo oo suud iyo taay xidhan oo ummadda oo dhan iskala weyn suud ma xirna maanta waan ka badbaadaa u malaynaya waad ka badbaadaa aad iyo aad inkastoo laakiin soomaalida ay dabeecad u tahay ku badan tahay walaal waayo nin cadaana mari weydiyo wuxuu igu yidhi molkan 24 kan hormaraa u yidho sax soomaaliduna si fiican baad u labisantihiin markaan meesha hormarayo marka gabadh baa aaminsanayd iyadna fiilka ku jirta in Soomaalidu collective narcissism inay leeyihiin oo isla wada qab weyn but that's a different story sax marka personality disorder waa ilaa 12 inkastoon wala taaban karaynin laakiin badanaa kuwaaba ugu muhiimsan sax marka personality disorder haddaan ka soo tago xanuuno waxaa jira iyagu yaryar oo qofku iskala noolaan karo oo iska caadi function garayn karo waxaa ka mid ah anxiety-ga depression-ka maxaa la dhahaa xanuunkan traumadu keentay PTSD-da anxiety-ga waa cabsi walwal badan cabsi ku salaysan depression-kana waa qofkii oo dareemayo murugo joogto ah iyo niyad xumo PTSD-gu waa qofkii oo trauma intay ku dhacday ama fal xun intuu ku dhacay kabacdi saska qaaday marka kuwaas waa xanuunada iska fudud ee dadku way iskala tacaalaan naka dhaqankeenana aanan dawaba loo raadsan sax kuwa badanaa dadkeenu ay dawada u raadsadaan oo badanaa waa bipolarka laba miir ay Soomaalidu u taqaanaan maadaama oo qofka marna uu fiican yahay manic yahay marna uu depressed yahay sax waxaa kaloo isagna jira schizophrenia tan la yiraahdo inakaan waa loo naqaano mid ana walida qofka geedka lagu xiray camal geedka lagu xiray waxaas uu sheekeysanayo isla hadlayo kuwaaba marka ugu muhiimsan sax waxaa kaloo iyagana jira xanuuno neurological sida imika autism-ka Soomaalidu aad ugu badan yahay oo maqasheen sax ADHD mid la yiraahdo oo qalqaali inakaan u naqaanay qalqaali ADHD af Soomaali waxa lagu dhahaa qalqaali kole meeshaan aanu ka imid Northka qalqaali baa looranayay maxaa laga wadaa qalqaali markii macnaheedu amde qof aan fadhiisanayno fudfud active sax ayaa qalqaali looranayay qalqaali okay marka iyaguna way badan yihiin so marka intaaba ugu muhiimsan xanuunada badanaa laakiin annaka maxay noogu yimaadeen dadka Soomaalidu badanaa waxa u yimaadeen depression-kaas waxaa laga yaabaa imika reerkiina yidhaahiin oo qofkani shaqo ma raadsanayo wax ma baranayo hadduu rabo waxba uma cunayo hurdo fiican ma seexanayo marka markay ka daalaan si kasta ula hadlaan kadib markaa inay caawimaad u raadiyaan baaniga taagoo kale oo qayb anxiety-ga ka mid ah iyagana badanaa marmar way ugu raadiyaan qofkii oo iska sasayo oo maxaa la yidhahdaa intuu naxo gariirayo marka ayada qofka wax hore oo kusoo dhacay baa kusoo noqnoqonaya miya maxaa sababa baaniga taaga so baaniga taaga waxyaabo badan baa sababa mar trauma wax hore kusoo dhacay way u sababayaan marna waxaa sababaya dadka qaar uu iskaga dhacaa waxaa laga yaabaa inay u keento ama xanuuno jirka oo haya sax masalan qofku dee waxaan xasuustaa hadda qof masalan wadnaha wax ugu jiro oo kale marka panic buu samayn jiray because wuxuu ka cabsanay wadnihiisu inuu anytime istaago ilaa bir baa ku jirta sax marka kaasoo kale xanuunkaabaa u keenay iyo mararka qaarkood wax uuna qofkii garanaynin ayaa u keeni karo marka kuma sheegayo laakiin marka de panigan baad adigu ka daweynaysaa marka panigaas iyo u badan iyo depressionka waxay Soomaalida ku imaadaan PTSD-da maadaama dagaalo iyo dhibaato ay Soomaalida aad u soo bartay
kaana PTSD da af Soomaali ma loo hayaa iyada macnaheed PTSD-du badanaa waa sas iyo argagax marka iyadu 3 calaamadood baa ugu weyn haye mid waxa weyn qofku inuu foojigan yahay markastoo shanqar yar hadday dhacdo boodayo midna waa re-experiencing flashback wixii oo iskaga soo noqonaya sax ama isagoo hurdaa ku soo noqdaan oo hasaasoo hurdada ka soo boodo ama maxaa la yidhaahdaa isagoo soo jeedaba ha ku soo noqdaan iyo avoidance in waxa la wixii xasuusinaya waxyaabihii uu soo maray uu iska ilaaliyo waxaan xasuustaa qofaan asxaab ahayn markaan moviyada tagno anytime moviga dagaalo iyo xabadiya wax dhacayaan sax moviga naga saar bay oran jireen mugta ma rabo inuu waxaas arko wixii inuu arko because wuxuu soo xasuusinayaa madfacyadii iyo dagaaladii ka dhici jiray Soomaaliya si fiican marka kaana aad bay ugu yimaadeen ka ayna badanaa Soomaalida iyo dadkuba intooda badan ayna u imanin waa personality disorderska sida imka narcissismka iyo xaas isma ogabo inay qabaan waxayba isku haystaan bayna dadka kale oo dhan khaldan yihiin oo marka kuwa badanaa waa ina adag tahay in la daweeyo maadaamana ogeyn maadaama qofka dee wixii doona qirsanayn waxa laga qaban kara ma aha okay marka waxaan rabay inaad wax yar ugu noqdo marka waxaa tiri sababaha Soomaalida ku imaadaan badanaa waa kuwaas sidee loola tacaalaa marka dawada la yidhaahdo anigoo soo kaabinaya waayo waa wax la barto sanado mugta anigu shakhsi ahaanteyda 2 technique baan isticmaalaa mid waxaa la dhahaa cognitive behavioral therapy marka cognitive behavioral therapy waxay ka dhigan tahay xanuunkan qofka haya badanaa waxaa ka mas-uula sida uu qofku u arko ama u fikirayo marka haddii sida uu u fikirayo wax laga bedelo shucuurtuu dareemayna waxbaa laga bedeli habdhaqankiisa ama behaviorkiisana waxbaa laga bedeli so imika tusaale haddaan ku siiyo haddii anigu aan masalan ka cabsanayo jiir markuu meeshan yimaado actually waaba igu dhac tan waan qof baan aqaanay waan Africa tegey ayaanoo meel school ka bixinaya presentation ayaa gabadh baa ii sheegtay waxay igu tidhi jiirkan ka baqaa markaa waan ku idhi iiga waran maskaxdaada maxaad istiraahdaa markaad jiid aragtid maxaa maskaxda kusoo dhaca marka waxay tiri waxa maskaxda kusoo dhaca uu cunay jiirkan ku cunay marka maxaad dareentaa cabsi xun baan dareemaa wadnaha ay booda maxaad samaysaa waan ordaawe tiro meel iyo waxbaan dul fuulaa mugta marka waan ku idhi bal aan analyze gareyno fikraddan aad istiri weligaa maad aragtay baa qof intuu jiir cunay la sii sidoo qabriga laleeyahay qofkan waa la aasayaa maadaamuu jiir cunay markaa iyada iyo kalaaskii dhannaa baa qoslay mugta markaa baan idhi maxaa ku habboon inaad tiraahid markaabay tiri wii qaniini markaa waan ku idhi imise waxoo kalaa ku qaniinaya markaabay tiri waxyaabo badan bay sheegtay tiri waxaabay qaniinaya kuwa iyaga saa ma uga cabsata maya markaa baan idhi imika haddii aad bedeshid markaad jiirka aragto oo tiraahid wii qaniini intaad odhan lahayd wii cuni see dareemi markaabay tiri hadduu qaniini markaa dee waan nici laakiin ma sasayo oo ma boodayo ficil ahaanna maxaad samaynay dee waan iska joojigayo ama kabiya waxbaan soo qaadano iskaga tuuray marka waxaan tusay say u fikiraysay inay ka mas-uulahayd inay marna sasto ay boodo ay cabsato iyo inay maxaa la yidhaahdaa ay intay wixii yaro dhibsato ay laakiin ayna boodin oo meesheeda iska joogto ay wax samayso so then marka cognitive behavioral therapy saabay ku salaysantahay qofka soo fikirayo in wax laga bedelo marka badanaa dadku markay anxiety iyo waxaa leeyihiin waxay sameeyaan waxa la yidhaha catastrophic thinking so wax ugu xun bay sawiranayaan de jiirkii oonan dad cunin ayay aaminayaan inuu cunayo xaggii odhan lahaa inuu qaniin waad aragta sooma so marka badanaa mararka qaarkood imika gaaladoo kale iyagu waxaan maadaama yaqaaniin waxaa la siiyaa warqado waxaa la yidhahdaa thoughtskaaga qor and then markaad qortid eeg is it realistic miya haddayna realistic ahayn maxaa realistigood ku bedelaysaa waxaa qortay wax loo qaateen miya haddayna loo qaateen ahayna wax dee macquul ah ku bedelo kaas nin waxaan aqaan aniga jaamacad marka asa dhigan jirnayoo wuxuu sas aad u xun ka qabaa diyaaradaha markastoo diyaarad raacayo waa inuu intuu drugs balaa cuno almost isagoo dhan uu iska dhigo
qof aan wada joogin ogta waxaan xasuustaa macallin statistics noo dhigi jiro professor ahaa ayaa wuxuu ku yiri chance-ka inaad diyaarad inta fuushid ay kula soo dhacdo waxaa ka badan in adoo intaad airportka usii socotood gaariga sii wadatid oo gaariga shil kula galo isku dhimatid marka la isku barbardhigo way maogta inta dad oo sanadka ku dhimato shilka gawaarida waa very common waa gawaarida maalin kasta dadka ay shil ku dhacaan oo ku dhintaa saasoo tahay kama cabsanayo isaga gaariga waa la caadi diyaaradaha oo reer ah oo aan badanaa dhicinna waxaa u sawirmayda isaga markay baasha cirka gashaba inay boolbool u kala faniinayso una si nabad ay kusoo noqonaynin marka waxyaaba noocaas oo kale oo qof kastaba isaga wax gooni ah waxna ay sababeen laga yaabo marka qaar baa cabsidaas catastrophic saa sheegtay oo kale ay sawiranayaan wixii ultimate wixii ugu xumaayo ka soo bixi lahaa inay ka soo baxayaan and I think that sheegayso waxa la yiraahdaa probability iyo possibility marka probability waa chance-ka waxani inuu dhici karo iyo possibility wixii inuu dhici karo sax marka badanaa dadku probability ma eegaan laakiin possibility the fact that ay diyaarad dhacdaba ay maqleen diyaarad dhacdo ay kaga dhigantahay marka cognitive behavioral ku saabo shaqeeya psychoanalysis iyo psychodynamics kood maqashay iyadu moor waxay ka fikirtaa xaguu waxaan ka yimid so markii aad yarayd hadii masalan hooyada ay ku oran jirtay war aamus dadka waaweyn ka xisho oo markaad weynaato ummadda markaad soo ristaagtid adiga dhan wadnuhu ku boodayo cabsanaysid so then waxaa la booqanayaa yaraantaadii waxaa la leeyahay okay hooyada ma ku saxsanaynaysaa ku tiraahdo haddayna ku saxsanayn markaad dadka la hadashid aad yarayd hadallo khayr caadi maad sheegi jirtay marka qofkii hadduu tii soo saxo dan wuxuu arkayaa marka in dhibkan hadda haysta uu halkaa ka yimid qof kale u keenay laakiin wuxuu isagu yahay aan ahayn so marka qofka tiisiina inuu qaadano hadda uu wixii isagu uu samayn karo uu sameeyo wixii la yaabayana uu dan ka gelin ayaa la baraya marka iyagu moor waxay istiri garayaan in early childhood meesha waxaan ka timid yaraantii horta dhibka yara jiraan anigu arkay waxa weeyaan waalidiin badan oo la shaqeeyay wali survival mode bay ku jiraan so iyagu wixii ay problem weyn u yaqaaniin unbay caawimaad u raadsadaan iminka waagaan shaqada bilaabay waxaan ku bilaabay intaanan clinic bilaabin school based mental health services marka dhowr school baan ka shaqayn jirnay oo caruurtana loo soo diri jiray play therapy u samayn jirnay hadda buugagta meeshan qaar play therapy ku qoran oo adarkiisa sax marka play therapy-ga qol yaroo waxaan lahayn tooyo badan ka buuxaan oo ilmuhu markuu dee 6 jir iyo 7 jir yahay kulama hadlayo igoo ciyaaraya ayaad ka hadlaysiinaysaa sax marka dhibka ugu weyn ee haystay waxa weeyaan waalidku laba ama waxay ku oranayaan ilmahaygu waxba ma qabo dadkan ku soo diray iyaga walwaalan ma yaroo maxaa la dhahdaa cunuga xilli muuba gaaraya heer ay wax ka khaldamaan iska ciyaaraya so marka taa mushkiladda horta naga ahayd oo way badiidi jireenba mugta ta kale labaadna haddayba ogolaadaanna waxay odhan jireen waa kane waan kari laahay bal waxaad u qabanaysa inuu qabo markaad tiraahayd siba ilmuhu markuu yar yahay in fact waxa therapiga loo sameeyaa waxaa jira program 0 to 5 ilmo yaroo 2 bilooda ayaa loo therapy aadayo oo therapy loo sameeyaa 2 bilooda 2 bilooda laakiin soo loogu sameeyaa waxay tahay ilmaha iyo hooyada ayaa wala imanaya hooyada wax dhigta loo gelinaya marka hooyada say ula interact garaynayso iyada ayaad wax u sheegaysa soo ninka masala ilmihii hadduu qoslo kale iyadii baad leedahay u qosol adiguna sababta cunug intaas u yar therapy loo geenayo maxay tahay because waxay tahay haddii masalan hooyadu ay ilmaha da'daas ay neglect garayso so masalan iminka ilmihii uu yar yahay markuu ilmuhu da'da leeyahay markuu hooyadii arko u qosla u bodboda soo ma markuu waa inuu u ooya soo ma so hooyadu marka waa inay attention badan siiso taas oo ay respond garayso markuu u baahan yahay markanuu qoslayana ay encourage garayso la qososho la ciyaarto laakiin hadday completely ignore garayso dan ilmihii laftigiisa anxiety baa imanaysa isagoo da'daas because ilmuhu wuxuu kaga duwan yahay markuu da'daa yahay isagoo cunto isma siin karo isagoo masquul isma geyn karo marka hooyadii ku xidhan yahay marka hooyadii hadday respond garayn weydo isaga waxa uu tahay it's a matter of life and death
because hooyada haddii cunto ku siin weydo dee waa dhiman mugta hade so marka sababtaaba isagoo traamo weyn ugu noqonaysaa soo intaa la eg isagoo intaa leeg buu asaga fasiranayaa haddii hooyada ayna markaad oydana kuu imaanaynin markaad qosashana ayna kula qoslaynin in wax dan kaaleba meesha ayna jirin inuu wax daban kaale una jirin but even haddii ay hooyadu respond garayn weyno isagoo aada u gaajaysan dan ilmihii inuu saso oo is yiraahdo waa dhimanaysaa waa sida adigoo dee cuntaad cunto oo kale waaye wax cunto ku siina waaye waad aad baad u naxaysaa mugta so then markaa hooyada ayaad baraysaa say ilmaha u respond garaynayso an iyadu responsekeeda markay improve garayso ilmihii moodkiisina u improve garoobaya marka taas waa ilmuhu markuu da'daa jiro laakiin markay 6 jir yihiin iyagaad la kulmaysaa marka dhibka naga haystay waxay tahay taa laftigooda waxaad u baahan tahay ilmaha markaad adigu wax u qabatid dhibaatadii guriga ka jirtayna in aad waalidkii kala hadashidoo tiraa guriga laftigiisa waxa laga bedelo oo xidhiidhkii hooyada iyo ilmaha maha la bedelo haddii masalan hooyadu mar alla markay xanaaqdo ay ilmaha wax ku tuurayso in marka hore hooyadu ay address garayso waxaan ka xanaajinayo because hooyo kasta ilmahayga aad ba u jeceshahay mana rabta inay dhibto laakiin dhibaatadu waxay ka timaadaa waxa weeyaan caruur badan bay Soomaalidu inta badan dhalaan hooyadii markaa ilmihii way la dadaalaysaa cuntadoodii iyo gurigiina nadiifisay waxyaabo saasa ilmihii waxaa laga yaabaa inay boodboodaan warfarayso ay tiraahdo markay dhowr mar farayso tiraahdo iyadiiba xanaaqaysa marka iyadoon waris ku hayn ayaa laga yaabaa ilmihii ama ku qaylido ama inay waxay gacanta hayso ay ku tuurto so dan taana waata ilmaha traumatize garaynaysa ee dhaawac maskaxeed u geysanaysa so marka su-aasha haddaan kusoo noqdo waalidku inay fahmaan waxaanay samaynayaan in damage weyn ama dhaawac weyn uu gaarsiinayo ayaa muhiima waalid badanna ma fahansan waxaa lagu leeyahay anigaba waa laygu soo qayli jiray anigaba waagaan yaraa waan boodboodi jiray marka wax weyn uma arkaan laakiin dee iyaga laftigoodu iyaa waru haya in qayladii lagu qayliyay inayna wax soo gaarsiin wax u geysatay in kale idna ma oga fiir marka aniga hadda markaad su-aashaas ka jawaabaysay oo dhahaysay maxaa la dhihi jiray cunugan yar saan loola dhaqmaa noloshiisa wax way ka bedeli karto ama sas buu qaadi karaa ama waxaas waxaan islahaa ma wadankan iyo dadka sida caruurta iyo bini'aadanka u fiiriyaan ayaa aad nooga duwan oo waxyaabo annaga aan wax weyn u arkin bay buunbuuninayaan oo wax weyn ahayn mise annaga de ilaahay baa isakaana badbaadsaday carradii markaan joognay waxaan wax caadi iska ahayd in cunug lagu qayliyo kab lagu tuuro maxaa la dhihi jiray inta ka dhac la dhaho inta ka bud la dhaho jaxaanjax weyn ma jirin cunugu markuu yar yahay subaxina waa iska dareeraysaa markaad guriga imaadar wixii doonaa lagugula hadlayaa hadhowna dib waxaa la dhihi jiray weynaadaa wanaagsan oo qofku iska soo weynaanaya hadhow wixii uu fahmayaayo adduunkiisaasuu iska gelayaa ma annaga kurtigana dee markaas waxaan laga fiirsan nagula soo dadka kusoo wada koreen hadhow markaan weynaanay isku malayn inaan caafimaad qabin aan caafimaad qabin mise dadkan iyo waddankan u nimid baa waxa ka badbadinayo buunbuuninayo waxyaaba aan miisaan saas culus lahayn waa su-aal fiican su-aasha kalean ku weydiinaya taa ka imanaysaa waxay tahay marka let's say family dad wala walaalo ah marka saa loola wala dhaqmo isku si may u saameynaysaa maya so marka bini'aadanka qaar baa ilaahay siiyey adkaysi iyo calool adeeg ay u dhasheen iminka 2 qof baa laga yaabaa in aabahood dhinto midina inuu caadi iska noqdo oo hawshiisa iska haysto midina inuu kasoo kaban waayo dhimashada mugta marka of course dad badan oo Soomaaliya oo nolol adag soo maray oo ka booday way buuxaan laakiin dad badan oo la hadhayna way jiraan mugta waddankani wuxuu sameynaya waxay tahay in wixii magacyo loo yeelay oo la yiri wixii inaku aan oran jirnay hebel wallahi waxba ka sii la oran jiray xagaan lagu dhaafi jiray in magac loo yeelo anxiety baa haysta manikii depression baa ku dhacay hooyadii aad uga naxay dhimashadeedii marka hadda we know wixii wuxuu yahay sababta ay muhiim u tahay in la address gareeyana waxa weeyaan because qofka noloshiisii bay laadaysaa imika waxaan xasuustaa wiil Sudanese South Sudan buu ahaa nin wuxuu ahaa
aad waxbarashada ugu fiican صح waxbarasho muuna soo baran halkan isagoo weyn buu yimiday 9 grade buu ka bilaabay isagoo 9 grade ka bilaabay ayuu wax kasta keeni jiray macallimiintu waxay oran jireen apply garee Ivy Leagues jaamacadaha waaweyn ninkii waxaa la hadhay inuu habeen oo dhan khamro cabo baadhiyo aroortiina iskuulka markuu rabana yimaado markuu rabana ima waayo markii ninkii ugu dambeyntii adigu iskuulkii waa laga eriyey intuu gabadh yaroo caddaana lagu qabtay gabadh yarba maahayn da'diis bay ahayd laakiin booliis xun baa helay oo aanan rabin inuu caddaanka la dheyd garayo soo waa la xiday iskuulkii waa laga eriyey markii dambe ninkan markii dambe anigu aan la sheekaystay waxaa meesha iga soo baxday in ninkani dhibaatooyin maadaama qaxooti ka yimid uu rafaad iyo trauma balaayo soo maray inuu la tacaalayay emotional problem oo nin iska murugaysan oo reerahoogii soo dhammaadeen oo isagoo keligii halkan ka joogay dadkoogii oo waxbarashadan iyo waxaan ay dadkan ka sheekeynayaanba ayna macno weyn uga fadhin oo tiisii la tacaalaya inuu ahaa so marka waddankanna waad aragto siyaabaha loo arkay waxay tahay Afrika waa la isku dul noolaa hadduu shaqeeyo hadduuna shaqayn macno ma jirin laakiin halkan shaqadii waxay rabtaa waa inaad concentration fiican samaynaysid waa inaad moodkaaga aad regulate garaynaysid oo qof xanaaqiisa iyo qof miisaaman inaad tahay oo dadka aanay isku dhacdhacaynin waxyaabo badan baa waddankan lagaa rabaa si aad u horumartid ood u shaqaystood u qabsatid inaad mentally maskaxiyan aad qof degan ama stable aad tahay marka waa sababta meeshan keenaysa qofkii in isla horey laga dareemo leeyahay qofkan ma shaqaysan karo ma baran karo waa dad waxaan u feejigan oo fiirinayo wixii daadan fiirin la ma helaysid waqti galiyo juhdi noloshiina de waxay u baahan tahay inaad wax akhridid wax qortid si fiican u communicate garanaysid wixii oo dhanna waa inaad mentally qof de diyaar u tahay muqto qof isoo wata xagga waxa la dhigi qofkan duu xoogaa si yahay bool baa ka maqan iyo kan qotab weeye hadaloo lama hadlayo laakiin waa dad dhaqmo oo reero loo meelaha iska maro maxaa la dhigi jiray aanan cidna shaqooyinka uguna de skill badan uma baahnayn oo ma ahayn wax concentration badan صح مثلا laga rabo muqto su'aasha kaloon ku weydiinaya Axmed waxay tahay waxaad focus ka saartay oo waliba aniga midaan ka akhriyay baaristaada aad jaamacadda Harvard markaad ka qalin jabinaysa aad qortay dhaqanka Soomaalida iyo waxa la yiraahdo collective therapy ama waxaan ka wada collective trauma arintaas bal faahfaahin guud naga sii labana bal maxaa la jir wixii kugu dhaliyay adiga research-kaaga waxaad ku ogaatay wax nooga tataabo waa su'aal fiican collective traumada waxa igu dhaliyay PhD da markaan sameynayay baan traumada iyo Soomaalidu siday u fahansan yihiin baan baarayay marka waxa ii soo baxday Soomaalidu inay aad interest ugu yihiin traumada ku dhacda as a group maadaama oo dagaalo sokeeya ay ka soo dhaceen reero la isku leyn jiray collective trauma in iyaga aad muhiim ugu tahay tani kaleba waa muhiim laakiin iyagu taabay aad familiar u lahayn so then literature-kii markaan baaray waxaan arkay westernku inayna aad collective traumada xoog badan u saarin iyagu individualka ama qofka shakhsiga wax ku dhacaya xooga saaran so then markii aan Harvard tagay anthropology program aan galay si dhaqanadii aan u barto siba dhaqankii Soomaalida aan xoog u saaro kabacdina markaa ayaan xooga saaray tani collective traumada ee Soomaalida marka waxa yaab lahaa ii soo baxay in traumadu ay weligeed ka jirtay dhulka Soomaalida horta intaanan taa u garin collective trauma muxuu yahay noo qeexay waxaas arinkaas muxuu yahay so collective trauma waxa weeyaan waa dhacdo ku dhacday group oo groupka markaa saameyn badan ku yeelatay saameyntaasoo ah inay maskaxiyan iyo jismiyanba ay dhibaato weyn u geysatay oo wax hal shakhsi ku dhacay aan ahayn laga yaabo wax oo wadan dhan ku dhici karo ama group dhan oo deegaan joog wada degan ku dhici karo ama reer qabiil sheeganayo ku dhici karo waleed waxa weeyaan waa adigu group ahaanba as a group wax loo gaarsiiyey misana waa la target gareeyey waa lagu soo duulay markaasi group baa wax loo gaarsiiyey xagga individual traumadu ay noqon karto masalan gabadh in iyadoo meel socota
nin uu helay uu kufsaday صح marka taas iyada ku egtahay tan laakiin reer baa lagu soo duulay iyo xooloogi inta la dhacay baa gabdhoogii la kufsaday nimankii la laayay صح marka haddana waa group ahaan baa loo dhaawacay group baa loo dhaawacay صح marka taa waxaanan interest ugu noqday inkastoo tani kale baan PhD ku sameeyey because taariikhda Soomaalida inay Soomaalidu reer isku leen jireen markay reer isku laayaana ay traumada ay meesha ka yimin jirtay waxaa kaloo interesting ah inay iyagu u lahaayeen conceptiyo ama kelmado terminology iyaga u gaara because markaan literature reviewga sameynayay western culture ku badanaa kelmado badan umayna lahayn collective traumada so marka kelmadan waxaa soo baxday utuntaasoo ah group ahaan dhaawaca maskaxiyan ah ee soo gaara marka dhinaca psychology markaad ka eegtid waa laba qaybood waa memoryga waa xasuustii ay ka qaadeen dhaawacan dhibkan soo gaadhay iyo emotionkii dareenkii ay dareemeen ee saska iyo argagaxa ahaa labadaaba markaa utuntii aan ku qeexay marka utuntii iyaga gudaha ka haysay ase group ahaan u haysay waxaa kale oo ka yimaada iyadoo ay dhashaa kelmad la yidhaahdo aano qabiil so marka aanadu waa ficilkii utuntu ay dhiiri gelinaysay maxaa la yidhahdaa actionka ay dadku qaadanayeen englishkana waxaa la yidhahdaa vendetta marka aanada iyadoo waxa kaloo iyadna meesha jirtay dakane mid la yidhaahdo dakanaduna marka waxa weeyaan reerkan wax geystay in ay og yihiin inay wax geysteen waa aanadii mid kaloo afraad baa jirto iyadna waa godob la yidhaahdo marka godobtuna waa wixii ay geysteen waa wixii ay dadka ku sameeyeen wixii dad ku sameeyeen aanay dhalisay aanadii waxay ku dhalisay dadkii kale ayagana waxay oga tagtay dakano iyagu dakano waa inay og yihiin inay wax geysteen godobtuna waa wixii ay geysteen utuntuna waa qofka wixii ay ku dhalisay dadkii wixii u geysteen wixii ku dhalisay gudaha sax aanaduna waa ficilkii ay kaga turjumayeen waxa gudaha ay ka dareemeen marka sidaas baan taaba marka aan aad uga helay sida ay cycle-ka ay u qeexeen kuwaas wax u dhigmo oo la mid ana waxaa tiri luuqadan ingiriiska kuma jiro luqadda ingiriiska kamaanan arkin anigu intaan baarayay luqadda ingiriiska waxaan ku arkay kelmado inay isticmaalaan collective trauma oo dhacdadii ahayd waxaa kaloo leeyihiin cultural memory marka cultural memorygu waxa weeyaan markay dhacdadaasi dhacdo in museum iyo wax loo sameeyo hadda holocaust museum baad maqashay marka waa cultural memory baa la dhahaa wixii ay ku xasuusanayaan monumentkii iyo museumkii iyo waxay leeyihin post memory wax la dhaho post memorygaasoo ah in loo gudbiyo generationada dambe iyo kale leeyihin collective memory baa jira oo iyadna xasuustii guud waxaanan soo sheegno o dhan oo laisku koobaya marka laakiin taa emotionka iyo memoryga kelmadda utuninaku aan leenahay iyagu weli kelmadu mayna haynin sodan markaan advisorskaygi aan la sheergareeyey waxay u arkeen inay arrin muhiima tahay in research lagu sameeyo oo la publish gareeyo marka waxa kaloo iyadna yaab ahayd tani collective cultural memoryga xagga iyagu museum iyo monumentka wixii anagoo sanabadan u naqaanay ay u sameynayaan iyo museumka taalooyinka ay u sameynayaan inaku dhaqan ahaan waxaan lahayn in meesha magaca loo sameeyo meesha uu dhibku ka gaadhay so iminka waxaan kusoo daray qoraalka lafaciisa baa ku jirta oo sawir ka bixinaysa dhibkii meesha ka dhacay in lafo dadkii ciisaha lafahoogii meesha lugaas waxaa kaloo jirta wardhigle waliba dee wartu waa valley uu dhiig qulqulayo so taa laftigeedu xogaa interest bay ahayd inay Soomaalidu ay cultural memorygoodu uu vivid images ama maxaa la dhahdaa imageyo
ilaa ayaga waqti ay museum iyo howlahaas ku dhisaan ma hayaan laakiin qaab kale oo wixii dhacay lagu xuso laguna xasuusto oo meel loo dhigay. In fact, waxaad oran kartaaba tooda ka fiican. Way waaraysaa. Wayna waaraysaa. Midda kalena it triggers emotion. aad bay u qeexanta. Wakaas. Okay. Emotion bay trigger garan marka la ficiisa la adigii baa garanaya meeshaas inay balaayo ka dhacday maqto. Aniga waan ku sheegay malaynaya miigan ku soo koray 10 sano nolosha u horeeyay. Waxaan xasuustaa meelo miyi oo duur ah cidna deganeyn oo magacyo noocaas oo kale leh meel baa jirto oo Talyaaniga dad ku dhameeyay oo quraan googoob baa la dhahaa. Wakaas. meel kale oo jirto maxaa la jiray meelaha aan ku soo koray kamid ah lafaas u dhawda la ficil dheeraad lahaa cid kale oo maxaa meesha degto ayadana wax loogu geysto. Marka dhulka Soomaalida oo dhan way markii meel wax xun ka dhacaan meesha baa loogu magac daray si dadka generation ka dambeeya wixii u xasuustaan. Exactly, and I think that's waxyaabahan kaga duwanahay dadka westernka. Maadaama westernka wixii formalize gareynayaan dan waxaad create gareynaysaa distance between dadkii waxaanay ku dhaceen iyo meelahan la sameeyey ee aanan shaqo ku lahayn wixii dhacay. Washington DC haddii museum laga sameeyo wixii Jarmalka ku dhacay Washington DC waa keera fogtaa laakiin inaku isla meeshii laftigeedii baan magac u saaraynaa descriptionkiina la socdo. waa garta. So marka saas bay ahayd laakiin tani collective traumada waxa kaloo igu kalifay in Soomaalida laftigeedu ay fahanto dhibaatooyinkan ay isku geysanayaani inay raad dheer samaynayaan. oo imika waxa weeyaan post memorygaas in wixii la iska dhaxlayo waxa laga yaabaa in Soomaalidu yiraahdeen haddayna waxba kugu dhicin maxaad uga fikiraysaa maqto. laakiin inkastoo saa leeyihiin haddana way ogaayeen in aanadu ay tahay wax generation ay dadku ay hayaan oo la odhanayo reerka aanan u qabnaa maqto. haddii xataa dadka islaayay ay waa hore dhinteen generationka ay ka dambeeyay ama jiilka ka dambeeyay baa aanadii isku hayo weli isku hayaa. so then taas waxay ku tusaysaa inuu wax dheer u yahay oonan la dhayalsan oo la address kale because innaka Soomaalida waxaan ku xunnahay oo weliba researchiga laftigeeda iga soo baxay in dadku ay dismiss gareeyaan. dadkan wareysanaya qaar baa ii sheegay ka odhanaya dhibkiina loo geystay xitaa waxaana leeyahay war dadka oo dhan ba waxaan ku dhacaanay maxaad ka wadwadeen. waa la iswada dhameynayay idinka keligiin baa wixii gaadhay. taasina waa invalidating statement. qofka bini'aadankana marka traumooyinka gaadhan wuxuu u baahan yahay validation. in la yidhaahdo walaa dhibaataan ku soo gaadhay in loo qiro qofka wixii ku dhacay oo la yidhaahdo waa dhibaatootay oo la dhegeysto oo intaa keliya haddii la sameeyo half bay wax ka qabanaysaa dhibkii. marka waxaad isticmaasho kale aad researchka kusoo dartay gabayo iyo maahmaahyo aad u adeegsanaysid in waxaan Soomaalida ay already yaqaanaan oo ay luuqado iyo erayo ay u isticmaalaan ay jiraan. bal kuwaas maxaa la jiray igana wax nooga soo qaado maxaad nooga sheegi kartaa? horta gabayada ma xasuusto anigu maahmaahan ku fiicanahay. marka maahmaahoo kale waxaa ku jirtay utun raagtay iyo ul adagba feer bay jabiyaan. utun raagtay iyo ul adagba feer bay jabiyaan. taas waxay ku tusaysaa marka utuntii dadku ay dareemeen ay gudaha ku hayeen markay raagto in ay keenayso inuu qofkani uu maxaa la yidhaahdaa uu destructive noqdo oo wax burburinayo. waana sababta aan u leeyahay wixii waa inaanan la dhayalsanay in la address gareeyo ay muhiim u tahay. innaka dhaqankeena waxaa la odhanaa labadaa reer way isdileenoo iyagoon baa markii dambena kala joogsada. reconciliation wax isku dayay ma jiro laakiin ma oga inuu wixii soo noqnoqonaya haddii wax laga qaban waayo sida ay maahmaahdaasi sheegayso. maahmaahyo kaloo aad interesting u ahaabaa iyagana jiray oo ahaa colku gale cabsi kuu reeb. taasina waxay ku tusaysaa in colku uunan intaa un ku ekaanayna uu kugu reebayo cabsi joogto ah oo muddo dheer joogayso ilaa kuwa ka dambeeya ay qaadayaan. in fact research baa jira maahmaahda taageeraya oo la yidhaahdo
blossom research la dhaho marka waxay sameeyeen jiir bay soo qaadeen haye bahal shock collar ay yidhaahiinoo shock garaynaysaa qoorta lagaga xidhay electric haye blossomka oo ayna weligood urin ayaa meesha lagu buufiyey haye markay uriyaan shoogii baa la siinaya mugta marka sidiibaa dhowr mar lagu sameeyey markii dambe heer waxay gaadheen marka bahalkii lagu buufiyo iyagoona shoogii la samayn inay sasaan ilaa waxay u maleeyaan labada inay soo socdaan waa conditioning labadii baa la beergareey soo dan alafsan cabsidii iska soo boodaysa sax taa waxa kasii cajiibsanaa caruurtii ay iyagu dhaleen oo bahalkan weligood urinin shoogganna weligood lagu samayn ayaa marka bahalkii meesha lagu buufiyo iyaguna sasayoo kala ordaya fariintii way soo gaartay inkastoo ayaga aynan arag but toos aynan u arag aynan bahalkanna urin waxaana lagu samaynin through genes waxa epigenetic la yidhaahdo waa loo soo gudbiyey ayaa lagu soo gudbiyey so markay wixii ay uriyeen waa kala carareen so taa markaa waxay keentay caddayn ah in traumadani la isgaadhsiiya ayna ku ekaanaynu dadkaas oo generationada soo socdana waxay dhahdaan soomaalida nin dab ku gubtay dambaskiisu ka cararaa sax dabkii lagu gubtaa dambaskiis laga baqaa sax exactly markaad eegtid PTSD-dana waa cabsida un because marka hadda aan kuu sheegayn ku lahaa avoidance-ka qofku wuxuu uga avoid garaynayaa waa cabsigu ka cabsanayna wixii oo kale kusoo noqdaan hypervigilance-ka wuxuu qofku la digtoon yahay because wuu is ilaalinaya waa cabsi mugta flashbacka waxaana kusoo noqonaya ama nightmare ha noqoto ama caadi ha usoo noqoto iyaduna waa sas cabsidun la xidhiir marka colku gala cabsi kugu reebtii ayaa symptomskaas oo dhan ay hoos imanayaan mugta iyo dee dambaska in laga boqo arrintan aad sheegayso hadda dhehaysay generation bay u gudbinaysaa hadda kahor waxaan akhriyay concept la dhaho adaa noo faahfaahinaya diyaa xasutide learned unhelpness ma lamsa learned helplessness yes noo faahfaahay baashaas aad bay isku yar dhow yihiin baan filayaa midda hadda sharaxday my learned helplessness waxa weeyaan qofku markay traumada gaadho traumada qofku markaa laba nooc buu u jawaaba mugta qolana waa qoladan aan kuleeyahay hypervigilant bay noqdaan oo iyaga dhanba sas iyo cabsi iyo xanaaq iyo dagaal bay ku jiraan markasta qolana demoralization baa ku dhaca niyad jab marka waa learned helplessnesskaas experimentigii ma xasuutaa ay ka dambeeyey learned helplessnesskaas in yar learned helplessnessku waxay yara garaysaa traumada dhinac bay uga yara baxaysaa depressionkay galaysaa bal laakiin qayb baa soo galaysa oo demoralizationka markay noqdaan then waxa weeyaan niyad jabkaas inay niyad jabaan oy aamini waayaan inay wax qabsan karaan inay wax samayn karaan ayay soo yara galaysaa laakiin ninkii Maslow buu ahaa mise horta ninkii Maslow hierarchy of needs bay ahayd but I think also learned helplessnesskana isaga ayay ahayd baan malayn marka ninkaas isagu wuxuu baarayay depressionka marka depressionkaabuu ayuu ku keenay in dadka qaarkood ay isdhiibaan nolosha oo ay markaa noloshooda waxba ka qaban waayaan laakiin hadda waxaa la ogaaday inay traumadu ay keeni karto taa laftigeeda nin kalaa jirayo maxaa la dhihi jiray buuggan qoray maxaa la yidhahdaa man's search for meaning oo ahaa ninkii Viktor Frankl ma la dhaho saas qofka markuu isdhiibu dhintaa buu adi conclusionkiisa ahaa oo qofka maxaa la dhihi qofba qof kale intuu uu ka isku day badan yahay ama uu de mustaqbalka u hayo niyad buu sii noolaanaya laakiin qofka hadduu uu isfahansiiye asaga inuuna mustaqbal jirin halkaas ku dhammaanaysaa hawshiis waa runtii isagu wuxuu xoogga saaray meaning nolosha haddii aynan waxaad u noolaatay ayna jirin dan markaa ma xamili karaysid waxyaabaha qaar ee kula soo gudbaya markaase wuxuu ka waday extreme traumada qofku sidee buu u wajihi karaa marka qofku waa inuu lahaado purpose uu u nool yahay marka isagu maadaama holocaustiga uu ku jiray then
waxa kaliya i badbaadiyay buu yidhi because meaning waxaan u noolaado ayaa jiray marka waxaan igu dhacayoo dhani umaanan fiirsanayna waxaan lahaa uun arrinkaad raadiso iminka therapiga markaan badanaa la shaqaynayno dadka depressionka ee ku odhanaya noloshooda way aabaaday waxaan u noolaado ma jiro anaa iska dhintaa la ii qaatay dan markaa waxaan raadinaa meaning waxa u noolaanaya soo qaarkood masala waxaad odhanaysaa caruur ma leedahay haa ka waran caruurtaada haddii aad ka dhimatid maxaa ku dhacaya marka qaar badan baa ka odhanaya wallaahi caruurteeda haddaan ka dhinto dee aabba la-aan baa ku dhacaysa dan markaa maxaad samaynay maad iska dhiman caruurtaadii inay aabba la-aan ku dhaco maad rabta so dan markaa sense of meaning inuu ilmihiisa uu arko iyagoo waaweynaaday oo guursaday oo reero yeeshay oo saas ayaa markaa dhiirigelisay inuu qofkii uu noloshii uu xiiseeyo daneeyo Soomaalidu marka ay joogaan wadankii expectationka ay ka qabaan Mareykanka iyo markay yimaadeen waxay kala kulmaan iyo markaa niyad xumada ka dhalata taas horta gabadh baa jirta buug ka qortay oo tiraahdo Elusive Janna yaa buugeeda la yiraahdo marka waxa ay ka hadashay dadka markay wadankii joogaan si maskaxdoodu ay Mareykan iyo Yurub uunu joogto muqto waxa kaloo interesting ah inay kuwan xaggana ay baadhay oo qaar badan oo ogaato halkan jooga inay ka fikireen inay wadankii ku noqdaan xaggana ma joogno Mareykan ku dhiman so marka waa su'aal philosophical oo aad u qoto dheer dan maxaa keenaya dadkii inayna presentka meeshan ay joogaan ayna ku noolaanin oo markaste wax ka maqan ay ka fikireen waa su'aal adag koley jawaabteeda uma malaynaya inaan hayo laakiin waxaan isleeyahay I think dadku markii ay qaxeen waxaa ku dhacaya sense of loss marka maadaama oo noloshii qaraabadii dadkii meelihii aan ku kornay wixii oo dhan aan ka qaxnay maaragtay dantii waxay create garaysay in aan weli aan ku jirno qaxi muqt oonan weli meelan ku degno meel saldhigan weli aanan helin hadda nina saaxiiban oo shalay isla joognay baa iga sheekeynay wuxuu yidhi niyo markaan baarkiyadan lugaynayo aan quruxdoodii waxaa soo arko haddana waxaan dareemaa buu yidhi inaan ajnabi ahay oo dhulkana dhulkaygii ahay quruxdan waxaa ku waana nin Mareykan oo baasboor Mareykan haysta wuxuu ku leeyahay laakiin haddaan buurihii Booramo ka yimid isagoo buurihii Booramo haddaan joogi lahaa dee meesha geed hoosti baan iska seexan lahaa halkan laakiin geed hoosti ma seexan silaalinaya sax foojignaan baa kugu jirta waad maxaa la dhihi jira dal shisheeye dareen ku joog wey dal shisheeye dareen ku jooga waanana dee nala tusayaayo hal qof oo Soomaali hadduu maanta dhib geysto Soomaali oo dhan baa la haystaa marka waa su'aal aad u fiican bal laakiin maxaan anaku samaynaynaa badanaa psychologically waxaad samaynaysaa expectationka qofka adeegaysa waxaad leedahay expectationkaagaasi ma realistic bay ahayn mise aan realistic bay ahayn hadduu qofku markuu America yimaado inuu baabuur iska wadanayo lacago meelaha kala soo baxbaxaya expectationkiisa ahay dan inuu taa evaluate garay noqonaysaa oo uu more objective expectations uu ku bedelo marka cognitive restructuring wax la yidhaha ayaan inta badan u isticmaalaa okay maxaa la dhihi jiray su-aasha ku weydiina waxay tahay Mareykanka dhalinyarada weliba ku dhalatay ama ayagoo yar la keenay ku barbaaray markaad isku barbardhigtid gabdhaha iyo wiilasha outcome ama result aad u kala duwan baa u soo baxa badankood haddii aad jaamacadaha wax lagu barto tagtid haddii aad high educationka meelaha graduate schoolka tagtid haddii aad shaqooyinka corporateka professionalka tagtid isbitaalada tagtid gabdha Soomaaliyeed oo wax bartay oo dadaalay oo maasha Allah ka buuxo wiilal way joogaan laakiin wiilashu waa ku yar yihiin haddii jeelalkii iyo meelihii daroogada lagu dhaqayay iyo dhibaatadii dadkii dee dhibbanaa inta u badnaa aad fiirisidna wiilasha u badan oo maxaa la dhahayay wiilal arrimo ama gangs ku lug yeeshay ama si kale nolosha uga dhacay ama darooga ku lug yeeshay baa ku badan dadkaana badankood guri baa lagu soo koriyay ma aha in gabdhahana guri gooni lagu soo koriyay wiilashana guri gooni lagu soo koriyay isku waalid baa soo koriyay isku community bay ku soo koraan waxaa rabay inaad bal wax yar nooga tataabatid wixii aad ka fahansan tahay waxa sababay in waxaan kala aad u kala duwan ay ka soo baxaan oo gabdhihina ay aad ugu wanaagsan yihiin oo successful u noqdeen wiilashina ay nolosha aad ula harjadayaan wallahi waa su'aal aad u fiican
I think dad badan oo ka hadlayana waan arkaa ha marka xagga researchiga haddaan eegno mhm hadda study baa jira ay jaamacaddan Harvard samaysay haye oo ay eegeen oo yidhaaheen ciyaalka maxaa successful ka dhiga haye marka studyga waxay ogaadeen joriska ilmaha loo dhiibo mhm inay ay one of the main predictors ay yihiin waxyaabaha sheegi kara ilmahana inuu noqonayo ilmo successful iyo in kale marka ilmaha guriga ka shaqee la yidhaahdo hawsha guriga loo diro u qabto mhm inay taasi keenayso ilmahaasi inuu successful noqdo ayay eegeen marka taa haddaad eegtid studygaasi waxay ka hadlaysaa soomaalida exactly oo soomaalida markaad eegtid mhm guriga ayaa wax ka qabta gabdhaha abdhahan baa wax ka qabta ha wiilasha wax looma diro ha marka studyga baa anigu isleeyahay jawaab weyn ay bixinaysaa haddii ay soomaalidu u fiirsadaan so waxaad leedahay cunuga markuu yar yahay hawsha loo diro iyo siduu xaafadda ugu adeegay iyo hawshuu guriga ka qabto ayaa noloshooda dambe inay successful noqdaan wax weyn ka bedelayso researchkan waa longitudinal study oo 40 years bay wadaan oo dadkii noloshooda raaceen marka waxay leeyihin kuwii markay yaryaraayeen guryahooda markay joogeen hawsha loo dirahayay baa noloshooda fiicnaataa markay weynaadaan kuwii meelaha iska ordayen waxba cidna u darsanayninna maxaa sababaya marka waxaa sababaya biniaadanku challengeku waxa weyn characterku dhisaa mogta haye waxaan xasuustaa naag psychologista ayaa la weydiiyey waayoo la yidhi maxay dadka lacagta leh caruurtoodu ay u noqdaan caruur baaba ah haye badanaa baadhiyo oo maxaa la dhahdaa daroogiyo balaayo kala mogta sax markaaba naagta waxay ku jawaabtay wixii dadkan successfulka ka dhigay ayay ilmahoogii u diideen so ninkani badanaa dadka successfulka waa dad hooyo keliya soo korisay aabayaashood iyagoo yaryar dhinteen ama nolol iska adag ku soo koray ama hadday rabaan aabahood iyo hooyadood xidhiidh fiican ka dhaxayn oo iyagu iskorisa dadkeeni la odhan jiray iskoriska marka dadaalka iyo kartida ay develop gareeyeen because adversity ama nolol adag yaa soo waajahday ayaa characterkooga dhistay ina dulqaadkoogu uu aada u fiicnaado in maxaa la yidhaahdaa perseveranska inay maxaa la yidhahdaa adkaysiga ay adkaystaan in maxaa la yidhaahdaa emotionkooda ama shucuurtooda ay regulate garayn karaan ama ay controli karaan waxyaabo badanoo nooc karaktero badanoo noocaas oo kale ah ay ka caawisay nolosha adag ay soo maraan marka dadka lacagta le marka waxaa lagu haystaa caruurtoodii ayay u diidaan waa nolol waxay geliyaan aada u fudud oo ilmihii waxa wuxuu rabo uu helayo marka wax ku kalifay inuu uu karakterkiisa develop gareeyo aynan aada u jirin innakana I think soomaalida de waxaa la isweydiinayaa dad lacag lama nihiin oo dad qaxootiyaane maxay in caruurteenu saad u noqdaan caruurteenna saad sheegaysa gabdhaha waa la baraa inay dadaalaan oo karti yeeshaan oo guriga ka shaqeeyaan oo wax bartaan iyagoo bannaankii wax ka baranaya guriga markay yimaadiinna shaqaynaya homeworkiga samaynaya marka ay dadaal adag galaan laakiin wiilasha maadaama oonan aada loo challenge garaynaynin siiba hooyooyinkuna ay u nugul yihiin wiilashooda dantaabaan anigu isleeyahay inta badan way keenaysaa in ay wiilashu adkaysigu ku adkaado because qofka haddii tolerancekiisa ama adkaysigiisa hadduu yaraado dan way fududahay inuu si dhib yar uu frustrated u noqdo oo iskuulka markuu ku adkaado iskaga cararo shaqadu markay ku adkaato iskaga cararo wixii markuu uu xamili waayo uu stress dareemana inuu daroogo iska soo qaato isku iloosiyo because iminka caruur badan oo hadda isticmaalaysa waxay ka odhan oo gurigaa laygu qayliyay oo qayladii guriga markaan kari waayo baan isku iloosiinaya baasha laakiin qofkan dulqaadkiisa haddii marka hore la dhisi lahaa dee qaylada guriga ma dhibteen iskuulku inuu ku adkaado ma dhibeen always waxa waa inuu dadaali lahaa way unbuu heli lahaa wixii uu ku gaaro meeshii uu rabay mugta iska badaaye axmedow in wiilasha weliba xaggan sheegaya wadankii meeshaan waxaa laga yaabaa inay hawsha is yar bedashay laakiin marka waddanka la joogay wiilasha iska badaaye in ayaga wax loo diro wax u qabtaane gabdhaha la dhashay walaalahood yaa lagu qaraaci jiro lagu qasbi jiray inay wiilasha u adeegaan oo ay sariirta usoo gulaan oo cuntada u kariyaan oo ay dharkooda u hagaajiyaan oo hawsha u qabtaan
gabdhahana dee arrintaas umay arkaan inay xaq tahay oo ay ka dagaalami jireen laakiin dara dhaqankii baa saas ka ahaayo way qaban jireen marka waxaa leedahay wixii gabdhaha culaysinayay ee dhibayay ee ka cabaadayeen ee ka qaylinayeen yaa markay soo weynaadeen noloshoodii wax u daray oo maxaa la jira ka caawiyay inay noqdaan dad noloshii guul ka gaaray wiilashina wixii naxariis in loo samaynayo loo malaynayay markay yaraayeen ee aanan hawshan lagu adkaynin waxba loo diraynin baa markay soo weynaadeen ayagana caqabad ku noqdeen marka ummadahan kale ee naga dhaqan duwana wiilkay gabadhan u kale eexan markay guriga joogaan waxaa la dhihi karaa outcome-ka gabdhaha iyo wiilashu waa iska agdhow yihiin aad bay iskaga dhow yihiin anu Djibouti waan ku soo koray markaan Djibouti korayay waxaan xasuustaa yamani badan baa Djibouti degan ciyaalka yamanida ee iskuulka nala dhigta markay iskuulka ka yimaadeen wiilashu dukaanka aabahood ay ka shaqayn jireen markaaba annagoo meelaha orordayna intaa u nimaadno dukaanka wax ka iibsanayno waa maxay iskuul baad ka timid ee shaqadan kale hadda aad madax la gashay markaa odhan jira maya aabahay meeshan waa inaan ka shaqeeyo homeworkigana waxa weyn xagga dambaan ku samaynaya marka waan yaabi jirna markaan yarayna because dhaqankii iyo mentalityga naga dhaadhacsanayd ayaa ahayd adoo iskuul dhiganaya sidee baa shaqa lagugu diri karaa waxaa kaloo yaaba oo aan aad ula yaaba waagan Maraykanka nimidnay ayaa waxaan teganay Tulero Marshall la yidhaahdo sax marka warshad weyn oo Schwanz la oran jiray baa ku taalay oo dadku badan u shaqayn jireen sax marka ninkii company-ga madaxda ka ahaa wiilkiisii oo grocery store bacaha dadka ugu galgalinaya sax ayaa yar walaalkii isla dhigan jireen baa arkay markaa buu yaabay war hebel buu yidhi waa maxay bacaanad meesha galgalinaysa markaa buu yidhi oo meesha maan ka shaqeeya markaa yidhi osowka aabbahaa warshaddaa dhan iskale maxaa meesha ku dhigay markaa yidhi aabbahay baabuur buu iibiyey laakiin insurance-ka anaa iska bixinaya so waan shaqaysanaya anakii waan yaabna waxaan ninkii dhanaa kambaniga lahaa ayaa wiilkiisa meelahan bacaha ku kurkuraya wax yaab leh nala noqotay marka taas waxay ku tusaysaa dadkani inay fahansan yihiin ina ilmaha loo sii diyaariyo nolosha oo aanan laga eegin hooyooyin badan oo waxaan maqlayaa alla ilmuhu waa samar weyn hadda oo maxaa la yidhaahdaa inay isdhibaan mar raba iyo waa inay nastaan iyo waa inay kan laakiin gaaladu iminka dee wiilka haddaan kuu sheegayo aabihiida waa kan meesha u diray yidhi orodoo iska bixi insurance-kaaga waana wiil yaroo 15 iyo 16 meelaha jira waxaade marka waalidiinta Soomaaliyeed waxaan leenahay dad wiilashiina iyo gabdhihiina inay isku outcome noqdaan ama ay labadaba wada guuleystaan rabaan cadaalad u samee oo guriga ka shaqeeyaan guriga labadooda ka wada shaqeeyaan weelasha ha meedhaan cuntada kariyaan guriga ha nadiifiyaan intaana dad u samaysiin wax weyn baad u qabateen ilaa sida mas'uuliyad loo qabto hawl looga soo baxo maxaa la dhihi jiray wax iskaaja loo yeesho way soo baraysaa way soo dhibaatada loo xamilo marka haddii gabdhihii ay dhaqaatiir iyo looyaro iyo dad successful ay noqdeen wiilal Soomaaliyeed oo gayaankooda oo sidoo kale successful u ay yar yihiin ma la dhihi karaa waxay sababaysaa in gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan ay xuduudda gooyaan oo ajaanib ay la midoobaan ama ay guursadaan wallaahi dhinaca psychology-ga markaan ka eego horta waxay create garaynaysaa stresska oo ah gabadhii waxa weeyaan dee nin ay taqaano oo Soomaaliya la dhaqan oo la diina way rabtaa sax laakiin hadduuna ninkii dee uunan wax badan kusoo dari karaynin nolosheedii ama dhibaataba u keenayo then inay ka cagajiido way imanaysaa mugta marka way jiraan hablo badan oo dee niman ajaaniba guursado muslina waana la odhan karaa because nimankaas waa niman dee successful oo midda kale waxbarashadu maaha keliya un qofku inuu dhaqaalo kusoo beeranayo isfahankii laftigeeda ayay qayb ka ciyaaraysa qofkii markuu wax barto qofkii de wuxuu ixtiraamayaa qof wuxuu noqonayaa go'aanadii ka fiirsanaya oo maskaxiyan process garaynaya wixii so marka qof si fiican ula dhaqmaya qofkii kale noqon karaa aqoontiisa daraaddeed muqta marka inay tii ka waayaan Soomaalida oo niman ajnabi ka helaan way dhici kartaa laakiin hablo badan oo Soomaaliyana hadda waxaad moodaa inay tiiba yareeyeen oo waxaan arkay hablo badan oo xitaa Afrika u doonanaya wiilal Soomaali oo ka soo guursanaya sax laakiin haddaan su'aash ku soo noqono way dhici kartaa inay istiraado qof aad isfahmi kartiin oo wax bartay oo
ku ixtiraamaya oo aqoon ku shaqaynaya raadso inay tiraa ajnabi raadso dhici karta. axmed waan soo gabagabeynaya 2 su'aalood oo u dambaysa ku weydiinayaa. Su'aasha koowaad waxaa weeye aniga markaan Soomaaliya joogay oon yaraa waxaan aad u arki jiray markaan meelahan imaado yaan arag waxay ahayd dadka miyir ahaan inta loogu dhex dhaco ama qofka si noqdo guri la keeno quraan la saaro qaarkood la uleeyo waxa ay ka dhaxlaan oo la dhaho maxaa la dhihi jiray hebel baa ka dhaxlay ama jinni baa ka dhaxlay ama balaaya ka dhaxlay waxaas ma wax la sameeyeyba ma wax asal ah caradan kale ma ka dhacdaa ummadaha kale ma nala qabaan arrintaas maxaad nooga sheegi kartaa? Kulli horta waa mawduuc weyn mar baan haddaan rabno si fiican u hadli karnaa. Mar baan faahfaahin doonaa. Laakiin way jirtaayoo hysteria. Gaaladu way lahaan jirin waagii hore qofka inuu jingalo. Oo uu maxaa la yidhaahdaa in fact Boston hadda markaan tegayay meelo qabuuroon soo booqanaynay baa jiray oo la odhan jiray waa meeshii ugu horreysay lagu dilay naagihii wijka ah. Naago layidhi dadka ayay qumayo ah qumayooyin ayaa inta la qabtay ayaa la gubay because dadkay galayeenoo ay ka dhaxadleen. DSM-kan aan isticmaalo buuggan aan ka eegno xanuunada disassociation baa la yidhaha. Marka disassociationka waxaa qofka maskaxdiisa inay 2 qaybood noqoto ayna warisku hayn. Iminka marka gabdhuhu ay dhacaan oo jinku ka dhaxadlayo hadhow markay soo kacaan mayna ogeen wax meesha ka dhacay maxaa dhacay dadkan maxay rabaan maxaa igu dhacay ay odhan jireen mugta waxa la wixii ay sameynayeen oo dhan war maayaan. Marka disassociationka uu jiraa badanaana waxaa keentaa la yidhaha extreme trauma. Marka waagii psychologigu uu bilaabmayey ninkii Freud la odhanayay psychotherapy-ga bilaabay iyo nin Charcot la odhan jiray oo Faransiis ah ayaa daweyn jiray dadka noocaas oo kale oo dumar u badnaa oo dhici jiray oo markaa wax ka dhaxali jireen. Kabacdi markii dambe multiple personality baa qaar loo bixiyey qaar dissociation vague baa loo bixiyey. In fact waxaa jira hadda case baa jira nin Minnesota intuu Mall of America baabuurkiisa dhigtay diyaarad iska raacay oo Florida tegey magac kaluu yeeshay reero kaluu yeeshay weligiiba war uma hayo inuu Minnesota ka yimid. Wuu is ilaawo maskaxdiisa dadkaa la wareegay. Dissociationka baa ku dhacay. Vague baa la dhahaa dissociation vague. Innakana way jiraan dad noocaas oo kale dad intay dhul kale ka yimaadeen inay meel kale ka yimaadeen iyo magacooga baanan garanayno waa dambe dad yaqaana intay meesha ka yimaadeen ay dhahaan war ninkii hebelaa meeshaaba lagu arkay laakiin isagoo aanan xasuusan. So taa way jirtaa. Laakiin tani dadka laga dhaxadlayo mar baa jirtay aan imaamo la shaqayn jiray aan tababari jirnay. So waabaan weydiinoo ku nidhi maxaa jinku dumarka unu galaa rag badan oo idin yimaado intay dhacaanad quraan ku akhridiin ma jiraan maya bay yidhahdeen haddaan aragna aad buu yiri marka maxaa keenay 90% ee dumar noqdo marka way fikiraan oo way isweydiiyeen marka jawaab mayna haynin. Markii dambe aan ku sheegnoo nidhi ma laga yaabaa inay traumadu ku badan tahay dumarka. So marka hypothesis waxay tahay wali research aanu maanan sameynin laakiin in traumadu dumarka ku badnayd siba kufsiga marka maadaama ku badnaayeen oo wixiina laga hadli karaynin oo misalan gabadha haddii in adeerkeed kufsaday haddii walaalkeed saaxiibkeed kufsaday haddii odayga hooyadeed qaba kufsaday wixii oo dhan ayna ka hadli karaynin dan inay markaa disassociationkan isku bedeshay. Marka badanaa terabiga markay yimaadeenna waxaa la sameeyaa waxaa la ogaadaa meesha waxaan ka yimaadeen traaminkii kusoo dhacay kabacdina waxaa la isku keenayaa 2 qaybood oo maskaxdu kala yeelatay ayaa hal meel la isku keenaya. Marka insha Allah waa topic dheer laakiin way jiraan hadda jawaabtaadii oo kooban wayna ku dhacaan dadka kale. DSM-kana qayb baa jirta disassociationkaas. Waxaa aad maxaa la dhihi jira aniga ii soo jiita arrinta hadda trio ah oo laga yaabo inay runta u badanayo in traumada iyo dhaawaca iyo dhibka loo geysto gabdhaha Soomaalida uu aad u badan yahay. Haddana dhaqan aan leenahay ah inaan arrimahan laga hadal oo ay ceeb tahay soo hadalqaadkooda iyo ka wada hadalkooda iyo waxooda oo wixii ayaga sababtooda gabdhaha una venue kale ama si kale oo wixii oo ay u manage gareeyaan ama ay ula wadaagaan aan u furnayno
laga yaabo inay isku bedesho gabdhahaas maxaa la dhihi jiray wixii inta kasoo bixi waayeen la suuxayo markay miyir daboolmaan aad iyo aad ay soo baxayaan wixii qaarkood aad iyo aad ha innaka keliyana maaha ha labadii case ugu horreeyeen akhriyay ha hindi bay ahayd hindi bay ahaayeen exactlyna waxaan interest ugu ahaa ha because sida ay hablaheenu samaynayaan ayaa laba naagoo hindi oo caseka ku jiray ay samaynayeen laakiin waxaan ka helay casekaas si ay psychoanalysis ugu sameeyeen ay u baareen yaraantoodii meeshii waxaan ay ka yimaadeen ayaa cajiib ah su-aasha u dambayso buug baad qoraysaa hadda oo morality ku saabsan buuggaas wax yar nooga taabo markuu soo baxayo iyo waxaad oga hadli doontidna lana wadaag buugga moralityga waxaa igu yara kalifay inaan qoro waxyaabahan hadda ka jira soomaalida koley kaagama sheekaynayo corruptionku aad buu ugu badan yahay wadankii halkanna waa ka nala haystee laleeyahay inta soomaalida waxbay dhaceen iyo traamada waayo biniaadanku waxyaabo xunxun iskugu sameeyaan ilaa heer ay dad iska laynayaan oo isbaabi'inayaan mugta marka soomaalidu ma ka hadashaa khalad iyo sax see baa lagu garanayaa marka badanaan waxaan isticmaalaya wax ka imanaya dhinaca psychologyga marka moral psychology baa la dhaha marka moral psychologyguna wuxuu ka hadlaya why ay dadku waxaan u sameeyaan ayuu ka hadlaya marka haddaan yaro taabto qaybaha aan ka hadlayo qaybta ugu horeysa waxa weeyaan moralitygu maxay tahay qaybta kale waxa weeyaan maxay muhiim u tahay moralitygu in laga hadlo oo dadkeenu discuss gareeyaan qaybta kale waxa weeyaan farqiga u dhexeeya dadkan westernka iyo inaku maadaama collectivistic culture aan nahay in masalan moralitygeenu ay qayb weyn ka ciyaarayso reerka aan ka dhalanay qofkii reerkeena inaan u naxno oo aan dareemayno morally inaan ku qasbana inaan qofkan wax u qabto kii reerka naga soo horjeedana aanan wax moral oo iga saaran una jirin inaan u naxoon maxaa la dhahdaa shaqo siiyo ta kale ee iyadna meesha ku jirta marka taa la eego dhaqanada even soomaalida laftigeedu u kala qaybsan yihiin dadka reer guuraaga ah iyo dadka beeraleyda maxaa kala duway morally inay kani dilku u fududaado kuwana dilku ay ka cagajiidaan oo ina aad wax u dilin moralkood maxay ku base garaynayaan iyo laba concept oo marka aan ku base garaynaya moralka soomaalida oo la dhaho gob iyo gobonimo iyo gun iyo gunnimo so marka gobkii oo ah qofkii morally idealka ah oo ah qof waxa wanaagsan u samaynaya because way wanaagsan yihiin laakiin aanan magac ku raadinayn reerkiisana islahayn sharaf kaga doonay oo aaminsan waxaan inay wax saxa yihiin oo u baahan in la sameeyo wixii khaladan inay khalad yihiin oo aanan ka cabsanaynin in reerkiisa ama cid ay dhibaato u geysato iyo gunnimo oo ah qofku inuu wixii isaga dantiisa uu sax u arko maxaa la dhahdaa wixii uu khiyaamayo because isaga dan baa ugu jirta haddayna dan ugu jirinna una dan ka gelaynin marka waxaan isleeyahay labadaa concept ayaa markaa fikrad weyn naga siinaya soomaalidu asal ahaan sa u aragto moralityga iyo qofka moralka dhaqan ahaan inkastoo haddana uu dhacay wax la yidhahdo moral injury oo dagaaladii sokeeye ay keeneen dadku inay caadaystaan in la isdilo in la isdhaco because dantii iyo noloshii markaa ka jirtay ayaa ku kaliftay marka taa laftigeeda sidee baa looga soo kabanaya marka intaabaa jabtaradu badan ay xoog saareen waan arki doonaa insha allah markuu buug soo baxo waanan kuu soo noqon doonaa mar kale toobigyo kaloo badan oo maanta waqti u heli doon rabi lahayn inaan hoos u galno ayaa jiro marka Dr. Axmed aad iyo aad baa u mahadsantahay.